maanta oo kale sanad walba 1 December waxaa dunida laga xusaa maalinta cudurka HIV/AIDS-ka waxaana laga hadlaa dhibaatooyinka uu ku hayo bulshooyinka ku nool caalamka. haddaba marka la joogo Soomaaliya qaar ka mid ah dadka nolol cudurkan HIV/AIDS-ka ma helaan daryeel bulsho iyo mid dawladeed. halkan waa hoyga uu ku nool yahay Cabdinaasir oo ka mid ah dadka la nool cudurka HIV/AIDS-ka ee Muqdisho. ma joogaan garbihiisa waalid, walaal, ehel iyo asxaab oo ay Muqdisho wada joogaan. waxayna ugu dambeysay warqabkooda kadib markii ay ogaadeen in uu qabo cudurkan HIV-ga muddo hadda laga joogo 8 bilood. dad kuwii ugu dhawaa ayuu kala kulmay faquuq uusan filayn. cidna kuma wehelisa nolosha gurigan cudurkan uu qaba dartiis. waxaan tagay isbitaal waa isbaare anoo si baaba'ayo xanuunka laga sheegay cidii u imaaday aabe oo dhintay Allah naxariisto hooyada adeerkay qabo adeerkay u sheegay hooyo qof iska xanuunsan waay waxba aan haysan oo sariir saaran adeerkay waxaan xanuunkaas laga helay waa kaas adeerkay wuxuu ilahay guriga iga bax alaabtaada iga qaado iga tag walaalaha ila dhashay ee dadka familkeyga oo dhan waa dadka soo faquuqa waay dad hadii oo dad famil oo garab ah ka helayo xilligan meeshan ma fadhi lahayn kuma noolaan lahayn marka waxa waaye faquuqaas lagu jira dadka soo faquuqa ay ka mid yihiin ayagana ku taalo ayay ku noqotay Cabdinaasir markii uu ogaaday in cudurkan HIV-ga ay qaadsiisay gabar uu guursaday taas oo la nooleyd cudurkan kadib isaga carartay qoyskiisa isla markaana waqtigan aan la ogeyn halka ay ku dambeyso mana haysto daryeel bulsho iyo mid dawladeed. cudurka marka hore waxa ka qaaday galmo ka qaaday gabar guursaday gabadha markaa guursaday gabadha aqoon uma lahayn waa guursaday guriga isla degnay maalmaha ka mid ah gabadhiisa u qabo maalmaha ka mid ah gabadhii waa iska baxday guriga way qofshay ilaa haddana meel kuma sheego waxay ahayd 8 bil ka hor dhibaato weyn aan dareemaa keligay guriga ku nool qof i caawiyo oo xitaa ma soo karo musqusha xataa dhibay ugu tahay caawin qof i caawiyo xataa ma laha gurigana keligay iskaga noolaa iskaga dhibaataysana. marka laga soo tago faquuqa iyo dhibaatooyinka maskaxeed uu cudurkan u geystay dhibanahan hadda waxa uu rajeynayaa in uu noqdo qof bulshada ka wacyigeliyo halista HIV-ga waxna ka bedelo habdhaqanka bulshada ee dadka la nool cudurkan HIV-ga. Maxamed Ibraahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.